fadlan haddaad ku cusub tahay janaalka subscribe soo saar mahadsanidin. daawadayaal ku soo dhawaada magaalada afgooye waa degmo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose. waa magaalo aad qurux badan ku taala meel istiraatiijiyad ah 30 kiiloomitir dhanka galbeed. waxay uga beegan tahay magaalada muqdisho. tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 79,400 oo ruux. magaaladan waxaa lagu magacaabaa ama lagu neenaasaa arundaaley. degmadan waxay leedahay dhul beereed aad u baaxad weyn. bartanka magaalada waxaa mara webiga shabeelle oo ah webiga ugu dheer Soomaaliya. magaaladu waxay leedahay 2 buundo aad qurux badan. sidoo kale magaalada waxaa lagu kala gooshaa doonyo ka samaysan alwaax oo lagu kala gudbo karo webiga labadiisa dhinac. degmada waxaa ku yaala suuqa ugu ganacsiga weyn xoolaha nool. xaafadaha degmadani waxay u kala baxaan xaafado tiradii ka batay, laakiin 4 xaafado ugu waaweyn waxaa ka mid ah xaawataako 21 Oktoobar, Damaale iyo Dhagaxtuur. qabiilka taga degmadani qabiilada taga adhehe degmadani waxaa ka mid ah Kalaadi iyo Wacaani iyo Gaare. waxaa kaloo taga qabiilka Jarweyne iyo Bagaadi iyo Mursade. nidaamka waxbarashada degmada Afgooye waa mid la mid ah guud ahaan wadanka Soomaaliya. tan iyo burburkii dowladii dhexe ee Soomaaliya, nidaamka waxbarashada ee wadankan waxaa ka jira xaalado aad u adag, balse waxaa gacanta ku haya nidaamka taladaha. dugsiga sare ee ugu caansan degmadan adhehe waxaa kala yihiin Ali Yaasir, Abi Muuse, Abi Qaasim, Al Isra, Al Madiini, Aqlam. caafimaadka degmada waxay leedahay isbitaal caafimaad oo la tacaala bukaanada xanuunsan. taariikhda degmadu waxaa soo martay maamulo kala duwan. maamulkii ku xukunka dheera wuxuu ahaa maamulka Sultaan Kalaadi oo ka talinayay ku dhawaad 50 sano laga soo bilaabo tabayaaqadii qarnigii 17 ilaa 1910. taariikhda miilaadiga markii ahayd waa magaalo aad u nabdoon leh, dhul beereed aad u baaxad weyn leh. waana ka inta barnaamijkeennii uga hadlaynay taariikhda magaalada Afgooye.